Italy markaan imid waxay noqotay inaan ninkii isoo dhibaateeyay inaan ku arko mar kale Italy isaga hor nimaado kada kufsiga sababta iga keentay inaan anoo muddo dheer ka soo wareegtay inaan sheego waxa iigu wacnayd yacni dhaawicii soo gaaray intuu la ekaay markii dhibka i gaaray kadib wixii aan dareemay oo jid dheer aan u soo maray ee ka mid tahay cabsida ee ka mid tahay hooyada iyo aabbaha iyo ehelkaaga ha ceebeynin aniga oo aanan ceebaysnayn inaan ayaga ka fikiro meesha naftayda ka fikiri lahaa marka dhibtaas waay waxa aniga igu kalifay inaan intaasoo sano qarsado qariskana waa wax xun oo nafta bini'aadanka wax ma kaydin karto aniga habeenkii dhibka igu dhacay waalidkay waan ka qarsaday walaalahay waan ka qarsaday dadkayga waan ka qarsaday qof kastoo aqoon ii leh ama iga agdhow dhanan ka qarsaday wixii waxay noqdeen wax naftaydii iyo aniga bes noo gooni ah taasna waxa keentay faquuqa iyo maaragtay dadkeena waxay ka aaminsan yihiin gabdhaha adigoo dhiban ayaa waxa lagu leeyahay adaa duliya adaa habeenkii wareegay adaa doontay waxyaalo fool xun aad waxaad kala kulmaysaa dadkii surround hareerahaaga joogay oo dhan ayaa adig ku faquuqaayo haddii aad sheegtid magaalada dhanna waxaad ka noqonaysaa qof tiin baraysan oo ka duwan mujtamaca dhan meesha jooga waxaad tahay naagtii la kufsaday ee xumayd yacni dulliga ahayd nin kasta oo kula degan ama xaafadda joogana wuxuu isku dayaa markaas gabadhan already waa la soo kufsaday adigana yay kaa fakan macnaha waxaa noqonay qof shabadaysan oo calaamadaysan oo dadka dhan ka soocan anigoo ogtaas darteed anoo dhowraay naftayda iyo naf waalid iyo naf walaal waxay noqotay inaan afkayga xirto waddankoo dhan ka soo cararo oo aan afnyaxaas ku dhaco afnyaxaas waxaa waaye meeshaad aadaysid wax kaaga horeeyo oo aad kala kulmaysid hadhow ma ogid waxay noqotay inaan waddankii ka soo cararo reerkaygii oo dhan iyo waalidkay waxay dhaheen gabadhii way baxsatay taasaa ugu sii daran waxay noqotay inay magacii noqoto oo la yidhaha gabadhii fakatay gabadhii xumeed gabadhii saan ahayd aniguna waa is ogahay inaanan gabar xun ahayn oo aan ahay qof inta la dhibaateeyey dhibaato ka cararaysa oo nafteedii meel ay qabato la marka waxay noqotay waddanba waddan inaan u tilaabo meel kastaba meel uga sii baxo oo lugahaygii maskaxdeydii iyo nolosheedaba ay degi weyso satalba ma noqon ilaahay wuxuu qadaray muddo markaan saas u heehaabayay oon meel walba u heehaabayo oon waddan walba u heehaabayo inay aakhirkii aan Itaaliya imid Italy markaan imid waxay noqotay inaan ninkii isoo dhibaateeyay inaan ku arko mar kale Italy isaga hor nimaado waxay noqotay inaan ka sii cabsado meeshaan aniga dhihi lahaa ardaday ii soo orda kaale iga qabta waxay noqotay aniga inaan sii cararo taas waxay idin tusinee dhaawaca qofka gaaro wuxuu ka qaadaa illness oo ah mental illness maskaxiyan ayuu qofku u jiranaa mar haddaa maskaxiyan u jiratidna ma kontrooli kartid naftaada oo ma tihid qof settle down ah oo xaqeeda doono karo ama qof wax u sheegan karo waxaaba tahay qof victima oo isagii haddana same time ka walwalaaya dadkiisii iyo qaraabadiisii iyo qofkii berri guursan lahaa iyo nolosha mustaqbalkoo samaysan lahaa kulli mugdi uga jiro marka waxaan rabo oo ulajeedadeyda tahay waxay tahay in gabdhaha aniga camal waqtigaas aan ku jiray hadda ma aha hadda hooyaan ahay gabdhahaas yar ee hadda yaryarkaa ee soo baxayo tayda ka mid taho yacni inayna noqonin dhaawac yar hadduu soo gaaro inay sheegato inay meesha ugu dhow tagto haddii booliis yahay booliis u sheegto hadday hooyadeed tahay hooyadeed u sheegto aabbaheed u sheegto wixii ayna noqonba wax sir ah wax ceeb ma jirto qofku dulmiyey isagaa kaa gardara adigaa lagu dulmiyey adiga inaad baxdo ood sheegato dacwadaada oo ay noqoto communitygana oo noqdo community aan iscaayin oon macnaha isfaquuqin oy dadku fahmaan yaa gardaran yaase laga gardaran yahay in saas loo xisaabtamo yaa dembiga galay yaase laga galay in la isbarbar dhigo laakiin in qofkii dembiga laga galay oo noqdo qof isagiiba sii cararayo kii dembiga laga gala leh aan kulli ku jeesano oon cayno
oon faquuqno waa waxa keliya oo dadkeena ay ilaa hadda sameeyaan waa in qofka xun aan farta ku wada fiiqno qofka la dulmayna aan u heelino aniga hadda waqti badanaan ka soo wareegay dacwo maanta aan meel la istaagsana ma jirto ilaahayaa mar horeba u dacwooday rabbina nololtii ka fiican u igeliyay iyo wax walba wanaagsan oo iigu bedelay laakiin qofkii dhaawac ahay maadaama ahay sanooyinaan usoo dhibtooday inaadan idinka dhibtoonina waayo waxaan u hadlay oo aad sheegtiin waqti hor leh markii dhibka dhaco horeyba laga sheego aan la qarinin qariska waa bulsho qarisaana dhib kastana waa qarsanaa dhibkana kufsi kaliya kuma eka wax kasto ayaan qarsanaa weli hadda anigoo weyn oo wax karto oo ilmo soo koriyo hooyo aabbaa wax kasta ah inaa weli isii dhexdid haddana isku xishoo waxa waay wax laga xishooda waay aniga saa isleeyahay idinka idin leeyahay isku xishooda intaa aniga dhihi lahaydeen isku xishooda idinka xishood mudan inaad ilaahay ka cabsatiin ood xaqa u heelisiin oo aadan gardarrada u heelinina u naxa isu naxa ilaahayna ka cabsada taas waay taan aniga aan rabo inaad fahamtiin waana sameeyo hadda war badan haddaan sheego waxba ma taraay laakiin buuq dhan aa idiin sameeyey oo bilow ilaa dhammaad leh oo wax kasto ayna ka maqnayn oo aan ku qoray insha allah af soomaaliya ku soo baxaa laakiin dhalinyarada oo idinka camal ah waxaan ka dhigaynaa afkan si aad si fiican ugu sii fahamtiin soomaalida laba qol ay isugu jiraan sideedaba dad dambiilayaal ah oo dambi galay oo aan rabin in laga hadlo arrintaas iyo dad la yiraahdo morally corrupted oo moral ahaan dambigaas taageersan oo mataqaana aan rabin in laga hadlo marka labadaas qof markay isku ka helaan mujtamac dhan oo markii laga hadlo arrin gabdhahoodii la kufsanaayo gabar Soomaaliyeed oo la kufsaday oo dhahayso aniga dhibkaas ay gaaray qofka aan rabin inuu maqlo oo dhahayo mataqaana maxay u hadlaysaa saacadan waa 60 jir waa 50 jir gabdhaheedii la guursanaya gabadhan qofkaasi wuxuu isfahamsiin laayahay war gabadhan iyadu wax ma kufsanay iyada la kufsaday markaas qofkii la kufsaday ee dhibaatadu gaartay ayaa laga dhigayaa dambiile meesha ay ahayd qofkii dambiga galay inaan raadsano oo aan ceebayno oo aan daba galno qofkii la kufsaday ayaa la ceebaynayaa halkii ay ahayd kuwii wax kufsaday in la ceebeeyo dad Soomaaliya oo intaan leego inay isku timid yiraahdo ma jiraan war gabdhaha dad kufsanay waa ceebaysan yihiin meel walba ay tagaan waxa laga qabto ma jirto taa badalkeeda marka gabadhii ayaa maskaxdeedii la dhibaataynaya nolosheedii la dhibaataynaya lagu ceebaynayaa in mataqaana iyadii dhibana ay ahayd taasna xal maaha dawr ma keenayso marka waxaan isleeyahay gabdhaha Soomaalida ay taladu u taalaa dumarka Soomaalidu waa inay hal qabiil noqdaan oo dhibka gaaraya iyaga caruurti koriya iyaga ka masuula inay ogaadaan gabdhahooda inay iyaga naftooda ogaadaan in ay noqdaan dad isku xiran oo ubad wanaagsan soo saara dadka qaar waxaan u maleynayaa qofku wax laga yaabaa inuu isleeyahay sharafta Soomaalida ilaali yeeran xumaan u arkin dad badan oo Soomaaliya ku dhahayo waxaan in laga hadlo ma fiicna waxay la tahay in la ilaaliyo sharafta Soomaalida laakiin sharafta Soomaalida waxay ku jirtaa in wixii jiray laga hadlo oo la xaliyo si sharafta loo ilaaliyo gabdho badan oo Soomaali ah ayaa naftu waxay ku kaliftay inay intay soo gabadha waxay ugu tiraadeen waxaan ka caagay guur waxaan uga caagay waxay tahay yaraanteedii dhibaato i gaartay kufsi i gaaray ayaan cuqdad ka qaaday inaan guursado nin Soomaali ah hay gabadhaas marka si u xallin kartaa nolosheeda waxaad u xallin kartaa in dulmigii iyo dhibkii gaaray laga hadlo loo hiiliyo la qanciyo la tiraayo bixiyo oo ay hesho bal horta qof dhageysanaya ya qof raba marka hore inuu ku dhageysto inaad hesho waay qofkan hadduu san rabin inuu ku dhageysto ma rabo waxaaga inuu xalliyo mujtamaca Soomaalida ma rabaan inay is dhageystaan qof kastana codkiisa waa la qabanayaa kuwii wax dulmiyay hadlaya kaliya cod leh dadkii la dulmiyay cod ma laha waana sababta aad arkayso Soomaaliya qof kasta oo xishoodo wax ma helo waxaan rabaa inaan laba wax idin xasuusiyo midna waa laga hadlay midna ma laga hadlin ragga Soomaaliyeed oo wanaagsan maxaa yeelay bulsho walba waxa waay dadka criminalka ah iyo dadka wanaagsan waxa badan dadka wanaagsan marka ninka Soomaaliyeed oo wanaagsan mar walba wuxuu dhahaa gabdhaheena waa jecelnahay waa hooyadeen waa walaasheen waa habreerteen waa eedadeen ani waxaan rabaa focuskaas in lagu bedelo ninka wax kufsanaayo
waa adeerkay waa abtigay waa wiilkayga waa qofkaan la shaqeeyo waa dariskayga sheekada markii saas markii loo bedelo oo mind setkaas la bedelo oo shiftigaas la sameeyo waxaa ogaanaysaa adiga iyo kan dulmiilaha inaadan kala dheerayn kan dulmiinahana markuu spacekaaga ku jiro waxaad ogaan kartaa powerka aad leedahay soomaali ka soomaalinin ahaan waxaad dhihi kartaa qofkan you can check him markuu gabar dulminaayo markuu aroosyada isa joogtaan markaa jidka isa maraysaan markaa maqaayadaha joogtaan markii gabdhihii masaajidada ay ka soo baxaan oo xitaa laga xishoonaynin oo hoos la fiirinaynin waa ninka fiican inuu hadlo waayo haddii kale kulligiin waxaa noqonaysiin isku mid haddii ninka wanaagsan uu aamuso hadduu ninka xun uu kaa dhaqankiisa iyo hadalkiisa kaa dheereeyo bulshadii waxaa lahaanayo ninka xun adigana waxaa noqonaysaa qof aan wax taraynin oo codkiisa la maqlaynin aamusnaantana waxaa waaye waa garab waayo xilli dambe oo maxaan ku raahdaa aan sariirteyda aan jiifay baan daawaday sariirta waan buuxiyo ooyin waxa aan ku ooynayna waxay tahay dareenkayga waxa waaye wixii ayada fiil gareynaysay ban anna aan dareemayay oo maxaan ku raahdaa haddana waxaa la sii ooyay ilaa ya intaas caloosheeda ay ku haysay oo aysan dee cidna aysan u soo bandhigin oo maanta nasiibkeeda uu noqday in ay soo bandhigto anigu waxaan dhihi lahaa maama saafi alxamdulilah inaad tiraahdid weeye maxaa yeelay ceeb ma lihid waxaa ceeb leh raggii falkan ku kacay baa ceeb leh oo maantana dhibaato qaba adigu calooshaadi nadiif bay ku tahay ilaa ay muddaa caloosha aad ku kaydinaysay ilaa ay muddaa waxay kugu noqdeen boog bay kugu noqdeen laakiin maanta waxaan aniga aan dareemayaa dabcan adna aad dareemaysaa habeenkii aad nafistay oo hadalkaasi aad sheegtay in caawa ay kaaga duwan tahay nimankaasina waxa weeye falkaasi ku kacay dabcan dee way isdaawadeen waxay sugayaan sidee aniga ila tahay magacyadooda bay sugayaan aniga laki haddaan ahaan lahaa waa sheegi lahaa magacyadooda xataa dhulkaba hala go'e iyaga marka wax xun bay sameeyeen waa dhaqankaasna dhaqan maanta bilaaw u ah soomaalida ma aha waa dhaqan soo jireen ah waa dhaqan aanan mar walba dhacda weeye oo aanan u kala socneen rag iyo dumarba wiilashana waa la kufsadaa gabdhahana waa la kufsadaa marka waxay tusaale u tahay hadalkaasi oo maama saafi ay ku hadashay waxay tusaale u tahay kuwa qarsanayo in barnaanka maanta ay u soo saaraan oo ay ka hadlaan oo adiga aad geesinimo oo adiga geesiyad aad u tahay hore waxa uga hadasho qofka ugu horeeya dabcan aan jecelahay ay ahayd maama milyuun sidaan jecelahay oo dhibkeeda barnaanka keensatay oo aan ayada xataa aan ku taageeray maantana adigoo ayada maba ii dhowaba gabdhaha la kufsadayna maanta oo dee xayinimo u soo fariistay maanta oo aan ag joogo adaan kaa hayaa anigana waxa weeye maama shaxshaxleysay u sheegtay weeye haddaan annagu fanaaniintii nahay hiil iyo hoo iyo cod dheerba waa kula garab taagannahay nimankaasina hadday wada nool yihiin wixii dhintayne alla uma naxariistaan leeyahay kuwa noolne ilaahay ha soo qabto wax kale aan dhahay ma jirto maxaa yeelay waxaan leeyahay soomaaliyey kuwa waxaana ugu daran kuwa joogaan waddankii maxaa yeelay wiilasha xataa waa la kufsadaa ma hadli karo haddii hooyadii waxa weeye wiilkeedii baa la kufsanayaa lacalla hadduu u sheega waa lacalla hadduu u sheego waxay ka cararaysaa wiilkaaga waa qaniis unbaa laga soo horkeenayaa hadal kale meesha ma yaallo wiilkaaga waa qaniis marka dantu waxay ku kalifisaa cunugiina hooyadii wuu ka qarinayaa lacalla kii cararoo dhaho hooyo abti kaaga darnay waxa sameynaya waa xigaalkooda sokooyahooda weeye waa abti iyo waa adeer iyo kii hooyo qabay waxa dhibaatada ku sameynayo gabdhaha yaryar iyo wiilasha